Garis Crystal Palace bay loo bilaaban doontaa maalinka iyadoo ciyaartooyga cusub ee dhan Jesus, Zinchenko, Saliba dhammaantood la filayo inay debuutkooda ama safashada ugu horreysay samayn karayaan maanta. waxaana la filayaa inay maanta ciyaarta ku bilowdaan habeenka Jesus, Martinelli, Odegaard, Saka, Xhaka, Partey, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko iyo Ramsdale. ogowna Arteta kulankiisii ugu horreeyay kooxda Arsenal waxaa markii ugu horreeyay Arsenal tababaru hadda aad buu Arsenal u toosistay berigu Arsenal imaanayay kulankii ugu horreeyna raggan baa u ciyaaray Lacazette, Aubameyang, Ozil, Nelson, Xhaka, Torreira, Saka, Luis Suarez, Niles, Leno inkastoo magacyadu meeshan ku jiraan wiilasha hadda shidan wiilasha hadda waxa waa niman faraha looga gubanayo Jesus oo 7 gool sii maraya Martinelli aadan ba joojin karin oo maantana soo digdiglaynaya Odegaard jikatorkii ahaa Sako Diamondka madow Messi-ga madow ah Shako dishbilinkiisa baa iska xumaadee Partey qatarta badnaasiisa kan waxba laga sugaya Zinchenko dambiisku qatar yahay White, Salib, Gabriel aran umada Arsenal sanadkan ani waxaan leeyahay war mala joogo ninkii jir wuxuu dhigi jiray armala joogo ayuu dhigi jiray war waxaan leeyahay maad ka joogtaan kooxda Arsenal idinka meesha hor ku dhignaanina Arsenal no libaax qoya bisa tahmoodina iminku Arsenal siisa wuxuu bilaabanayaa saddexdii ugu dambeeyay Arsenal waxay kooxda lacagaha ugu badan ku bixisay Arsenal iyo Crystal Palace waxa Premier League lagu furayaa saacad markay tahay 10ka habeenimo ayaa lagu furayaa iyo caawa halka 30 daqiiqo ka horna ay furmi doonto ama furmi doono horyaalka Bundesliga oo Frankfurt iyo Bayern Munich ay ciyaari doonaan Arsenal caawa away oo guriga Patrick Vieira iyo kooxda waxay aadayaan Crystal Palace macalinkoodii saaxiib ciyaartooygoodii hore ee horyaalka BT kula qaaday ee Vieira ay la kulmayaan oo Crystal Palace Arsenal lakad bay ku tahay sida ay Man City sidoo kale ay lakad ugu tahay oo kale ama ay ku dhib tahay way ku dhagaan inta badan laakiin Arsenal wiilashooda wuxuu muuqanay ma jiraan Brazilianka gaar ahaan saddexda Brazilian weeyaan way israadsanayaan moogtahay adduunka waxa weeyaan yaa ninka walaalka ah waa la raadsadaa moogtahay yaa ama kugu yacni wadanka ah yaa marka waa kayo balfiiri Brazilianku intay meel wada fariisteen bay sawir wadaagayaan macnaheedu waxay leeyihiin ready baan u nahay seasonka cusub inuu bilowdo waa sugi karlaan haday leeyihiin macnaha Marquinhos, Martinelli iyo Jesus waxa weeyaan habeenku wara jiri doona runtii Arsenal Premier League furi doonta yaa sanadkii hore maradu dhac ku furatay oo arka doona caawa hadii ay gol ku bilaabi doonaan waliba habeenka Premier League baasmi doona ayaa waxa laga joogaa iminku markuu bilowday markii ugu horeysay magaca in lagu ciyaaro 92 waxa caawa laga joogaa seasonkii 30aad baa laga joogaayo Premier League 30 sano ay u dabaaldagayaa oo uu jiro horyaalkan yaa magaca inta lagu ciyaarayo ayaa wuxuu Premier League u dabaaldegayaa 30 sano oo Premier League magac ahaantiisa lagu ciyaarayo markii ugu horeysay horyaalkan la ciyaarayna waxa ku guuleysatay oo magacan ku qaaday nimanka iminku ku guuleysan la horyaalka ee Manchester United 92 markii ugu horeysay magaca lagu waqlay Premier League United baa ku guuleystay horyaalka iyagoo soo afjaray markaas 26 sano oo sugitaana oo koob la'aan ahay ya 26 sano biriga suuyin koobo 92 markii hore ku guuleysanayeen biriga shirar oo yacni khatar badan baa yacni u ciyaariyay Blackburn horyaalkuna aad buu xiiso badnaayo marka 30 sano ayuu iminku Premier League u dabaaldegaya seasonkan rag weyn ayaa soo galay Premier League kooxuhu Premier League lacag bay kharash gareeyeen marka laga reebo Leicester City oo wax bixin mooyaane dhammaan kooxuhu kala dhanba dhaqaale bay bixin iyadoo Arsenal tahay kooxda ugu badan seasonkan bixisay lacagaha ugu badan waana 117 milyan saxiili weyn isaga Premier League sameeyay wuxuu ahaa Haaland oo number 1 oo kaga yimaaday sidii kooxda Borussia Dortmund waana ninka toddobaadku safan doona ciyaarta guuleysa Premier League Raheem Sterling baa ahaa nin kale weyn oo Chelsea seasonkan u yimaaday ninka saddexaad waa Darwin Núñez oo isna Liverpool ma seasonka kan Jesus waa nin kale oo seasonka yimaaday Arsenal Richarlison waa ninka Tottenham seasonka u yimaaday isna Tottenham ka dhigi doona kuwa tartamayaala waxaana Spurs doonaysaa ugu dambeyntii soo afjarto koob la'aanta 15 sano Christian Eriksen oo kale United buu sanadkan free ugu yimaaday Lingard oo kale Forest buu aaday Bobby oo kale isagana wuxuu seasonka ka dhacay kooxda kubadda cagta Newcastle waa nin khatar badan ka warninkahay warnin khalis badan bay qaateen Julian Alvarez oo kale waa ninka aan la buunbuunin laakiin seasonkan waa cadarayn doona ya marka kolley seasonkan rag ugu weynaa ee la qaatina kuwa kaabay ahaayeen iyadoo caawa William Saliba uu Arsenal ugu soo bilaaban doono kulanka furitaanka ee Premier League waa safashidiisa ugu horeysay Arsenal u sameynayo muddo 3 sano oo Arsenal ka tirsan yahay hal kulan caalami u macsafan Arsenal ama baa lagu diray ama isoo hadda qaangaarayo nin noqday buu Arsenal ku soo laabtay weynaaday macna canug yar buu hadda waa ragoobay rag buu noqday ya marka ninka kan ruutii muddo dheer ba ama lagu diray 10 iyo Nice iyo Marseille ugu dambeyntii 3 sano Arsenal kamid aha oo aanu hal ciyaar xataa safan ugu dambeyntii caaw safanaya baa leeyahay
arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee crystal palace markay caawa ciyaarayso arsenal tierney iyo tamayusu iyo viera dhammaantood dhaawacay kasoo wada qabteen arteta hogaankiisa taa inuu ciyaarsiiyo laakiin caawa waxaa la fahansanyay arsenal dhammaantood ciyaartoogiisa inuu heli doono keliya marka laga reebo smith rawi oo laga yaabo inuu maqnaan karo lagana yaabo isagu inuu ciyaari karo balse ogow arsenal waxayna siisa kale soo dhaafi noqotay koox dishblin xun iyo si sanadii ugu dambeeyay arteta la joogay waxaa laga doonayaa kooxdan inay caadis ka dhigaan yacni annagu haddaan soomaalinahay waxaan rahnaa arsenal warmay spirit isgeliyaan warmay naf isgeliyaan warmay dhiig isku yeelaan baan rahnaa dhiig aan ka hadlayno waxay tahay walaalayaal annagu waxaan kala jeednaa war dagaalama oo nimanku iska dhiciya horyaaladu qaada koobka ku guulaysta habeenkii ciyaaraha maalayacnigaad ciyaartaan ee baronigan iska dhedheesha ah u bedela baroni natiijo ah ilaahu baad baronid ciyaarin laakiin guulaysta ayaan kala jeednaa mooyaane ma ahan dadka haraantiya roosa qaata dishbilin xumaada macan imika horse waxay noqotay kooxdii ugu horeysa taarikhda Premier League 100 rid kor u dhaafta waxaasna waxay dhacay waqtiga ninka la yiraahdo Arteta marka Arsenal dishbilin xuma ayaa lagu arkay sanadii la soo dhaafay kulan kastina roosa qaadana ya warwarna la fahma dhiig isgeliyaan ka wadnaa mooyaane dagaalo mooyaane ma ahan dadka laayo roosa qaata maan ciyaaraha iska xumaynina ciday hays waalina sisaka wal ku lacag beelay nimanka ugu qarashka badan horyaalka baatiini iminku Arteta kooxdiisa kala soo dhaafay 13 يعني سيسك رسول أفكارية معها أرتو جوجو أرسنال waxay qaadatay 13 jeer bay ridka qaateen Premier League taasoo ku badan koox kasta tan kooxdan tababar u noqday marka tartiiba hay ana waalin ciday natiijada ka saga ciyaaraya ya ilma Soomaaliyeed bad dhibaato ku timi ogtahay cira ka soo baxday gool dhalinyar yar ee waxay leeyihiin ya circaanood le wayaan war circaanoodna wax kugu yaalo ciradii caadiga ka soo baxday nimanka ba ku duqweysiinaya gabdhii xataa yaray taageerayaan maad gabdhaha naga waalaysan cira ka soo bixinaysan ciday gabadha tartiiba ana waayna dad wax laga shansanayo tiine waxaan qadad badanaysa yareeya kulay Arsenal ciyaartii ugu horeysa waxay ku furan doontaa Premier League nimanka kan ee Crystal Palace habeenka uguna Arsenal nimankan qataati ku noqdeen Crystal Palace kaliya hal ciyaar ay guuldar ka soo gaartay Arsenal 8 ciyaar soo Premier League laba jeer Crystal Palace baa badisay 5 jeerna baraja la galay sideedii kale ugu dambeeyay Arsenal kaliya hal jeer ka badisay Crystal Palace wad ogtahay sida ay Crystal ayaan tan dhibaato ugu noqotay kooxda Arsenal mid kale Arsenal waxaa laga badinayay kulanka furitaanka Premier League 5 kamid ah 9kii season ugu dambeeyay 4 jeer ka biyay iyo guul ugu furteen waxaan si kala soo dhaafay ku furteen guul daro markii Brentford ay balaayo ku dhigtay oo kuwan laba ku badiyaan iska jira hoodi guul daraha ku furina ciday wixii jawaan guul dara gadaal lahayd ka ahaado yacni balaayo gadaal ka imaan kartaa aan horta nimanka Liverpool Man City baan ka yaabay siisa ka dhan waxa arkaa Liverpool waxa la taqaana Man City laba jeer baa laga badinaa ama hal jeer laga badinaa macna dadkana toban iyo waxa korka loo dhaafay qolyahan kala duwan baan ka hadlayaa marka Arsenal siisanadii ay ku furanayso Premier League guul darooyin bay ku furan jirtay ya 9 sano ugu dambeeyay 5 kamid horyaalka Arsenal guul daro ku furatay marka waxay tahay inay ka digtoonaadaan waliba Bukayo Saka ayaa si kala soo dhaf ahaa Arsenal kan ugu goolasho badan waxaan dhaliyay 12 gool waa seasonkii Arsenal goolaliyeeda goolasho ugu yacni ninka ugu goolasho badan uu dhaliyay goolasho ka yari tan iyo Robin van Persie oo 12 gool dhaliyay seasonkii 2006 iyo 8 iyo 9kii marka waxaan suurtagal ahay ninka Arsenal ugu goolasho badan kaliya 12 gool dhaliyo laakiin seasonkan iska daa waxa yimaaday Jesus baa yimaaday 7 gool sii maraya waana ninka Man City u dhaliyay 6 gool oo caawiyayna 1 gool todobadii ciyaar soo dhaafay Premier League Man City u ciyaaray marka ninkaasna waa nin qatar badan oo caawa waan arki doonaa waa ninka ciyaaraha saaxiibtinimo 7 gool sii maraya